qaybooda kala duwan dhalinyarada iskoolaadka dugsiyada hoose meeshan ka muuqda ururada hooyooyinka odayaalka guurtida dhaqanka dhammaan waxaanu maanta iskugu soo baxnay dhammaanteen inaannu musharax madaxweyne ku-xigeen xasan maxamed gacali aan ku soo dhoweyna Caabudwaaq ku soo dhowow Caabudwaaq shacabkaaga oo kula doonaya xilkaas ilaahay inuu ku sakhiro ku garab taagan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ku fududeeyo kugu ceebastiro guulaysaannu ku leenahay soo dhowow ku soo dhowow deegaankaagii shacabkaagii oo kuu baahan ugu dambeyntii waxaa hadal mahadcelina halkaasi ka jeediyay sharax madaxweyne ku-xigeen maamulka galmudug xasan maxamed siciid samatar gacali wuxuuna bulshadii goobta iskugu timid uga mahadceliyay saacadihii ay qorraxda u taagnaayeen iyo soo dhoweyntii wacnayda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan imaado Caabudwaaq oo idinku wargeliyo oo marqaati ka noqotaan inaan u taaganahay xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaantiin intaad meeshan qorraxda u adkaysanaysaan dhallinyaradiinna haweenka odayaasha dadkii dhan aqoon-yahanada meesha dhooban waa mahadsantihiin waxaana mahad gaara leh guddoomiyaha degmada Caabudwaaq mahad Omar qorraxda baan joognaa waan isku imaanaynaa ragga amniga dhallinyarada haweenka kulli waa idinku mahadcelinayaa xasan siciid samatar gacali ayaa waxa uu kamid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ku-xigeen ee maamulka galmudug ee farakutirista kuna dhawaaqay jagadaasi inay u tartami doonaan ayadoona la filayo in maalmaha uu ku sugan yahay gudaha magaalada Caabudwaaq oo kulamo kala duwan la qaato bulshada degmada waa mahad bashiir cismaan mahad xilif telefishinka caalamiga ah ee Kalsan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud